arrinta ka dhacday deegaanka Gariley waa wax laga xumaado oo dhibaato u keenaysa dadka iyo shacabka ceelashii iyo biyihii loo qodi lahaa dadka farsamo yaqaanka oo waxa arrintaas ku timid dhacdaas oo la laayana wax tiiraanya la weeyo su'aasha meesha taala waxay tahay nimankan caqligooda iyo waxooda xoolihii meeshay ka cabi lahaayeen iyo biyihii cabi lahaayeen bay burburinayaan hadhowtana waxay leeyihiin waxaad keentaan sakaawaadkii keena xoolihiina ma badbaadinayaan dadkiina ma badbaadinayaan waa dilayaan sakawaadna waa rabaan bal halkaas adigu halkeebu ka shaqeeya adduunka general marka meelo kamid ah Hiiraan sida hadda aad la socotidba ilaa iyo hadii kaba soo qaadba dadka shacabka al-shabaab ay ka hor yimaadaan dadka shacabka awood ma lahan dawladana haday tiraado shacabku waa inay dagaalamaan shacabkina ay dad aan awood lahayn oo al-shabaab iska celin kara aysan ahayn halkaas oo masiibo kale kama imaan karto arinta horta dhibaato weeye dawladdu waxba aniga ma ahan inay hakranayso intay tabarteeda waxa meesha rabaa inaan ku sheego saaray dhibaatada oo dhan dawladda kaliya ma ahan dawladda iyo shacabka ayaa dawladda laftigooda laakiin problemka meeshaan ka jira waxa weeye maamul goboleedyada ayaa waxay haystaan ciidankii iyo wixii ama xaq dhaqaalo ama wax kasta ha noqotee ayay haystaan waxay diideen dawladda federaalka ama ciidamadii isku dhafka ahaa in si wanaagsan la isugu dhafo waxay u dhaqameen qaab qabiil oo ah nin walbaba inuu meeshuu jooga yiraahdo anaa meeshaan ka iskale oo aan gobol kale u gudbanayn uusan jirin marka xukuumaddu waxa weeye waa dadka oo dhan maamul goboleed ha noqdo ama shacabweynaha ha noqdo inay isu gurmadaan misaal waxaan ka soo qaadaynaa waxa yar raaliga ah misaal Puntland oo kale agteeda dagaal baa ka socda galmudug uma gurmanayaan Jubaland waxa weeye oo meesha dariskeeda oo kaleeto oo koonfur galbeed isuma gurmanayaan magaalo u gurmanayso male sababtu waxa weeye qaab qabiil ayaa loo disaangareeyay ama loola dhaqamay waata xaq ama dhaqaalaha noqoto ama xaq ciidan noqoto marka problemku waxa weeye hadii gobolkii uu nin iska yiraahdo anaa iskale dawladii dhaxana qolooyin hadda soo magaca waan ugu soo kordhay la leeyahay waa milkiile waayahan dambe oo dhan marka hadii xukuumaddiina la yiraahdo waa milkiile waxa weeye oo dadkii aan la midayn oo loo jihayn dagaalka waxa weeye dadka shacabka waa dhibaatoonayaan waa tahay general hal mid baan kugu daa waxa weeye taakuleen baa laga rabaa iska dhafadaad ciidan soo direen war xataa soo dir mataqaanaa taakuleen soo dir iyo saad u soo dir dadka dagaalamaya iyo ciidanka dagaalamaya haddaa tahay maamul goboleed laakiin waxa weeye adigu iska celi gobolkaasaa joogtahay adigu iska celi waxaas qarannimana ma ahan wada shaqeynna ma ahan markii lacag la qaybsanayo iyo wax la qaybsanayo kaliya inta la isu yimaado la kala tago waa hagaag general waa gartay dhinaca kaleeto markaa taasi ka soo tagto maamul goboleedyada laftooda awalba al-shabaab deegaana ayay gacanta ku hayeen ayadoo maamul goboleedyada ay joogaan hadda jubbada dhaxoo dhan shabaab ayaa gacanta ku haya jubbada hoose meelo kamida gada isuma gudbi karta haddaan Jubbaland oo kaliya ka hadalno waana ogtahay Hirshabeelle meelo kamida ilaa iyo Galmudug ilaa iyo Koonfur Galbeed marka xaddiga al-shabaab way ka weyn tahay shacab hadda la abaabulay iyo xataa maamul goboleedyada gaara ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya doorkoodu muxuu noqonayaa la dagaalanka al-shabaab runtii waxba ka jeedin in mataqaana mas'uuliyadda maamul goboleedka anigu muxuu hal meel kaliya ma dheehay ama Jubbaland ama xagga kida ama Puntland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ma dhahayo laakiin waajibaad wada saaran ayay ka hakinayaan oo ka hakranayaan saaxiibadooda kale oo dagaalku haysto haddaan u soo noqdo midaan AMISOM waxa weeye haddii adiga waxaadan adiga gacantaada ku qabsanayna ku qaban mahayo ama xukuumad ahaan noqo ama dawlad ahaan noqo waqtiga hadda dagaalku bilowdana waxa weeye waqti ku habboona waa tahay dhinac markii laga fiiriyo dhinac kalena waqtigii u diyaar garowga gaar ahaan nimankana leeyahay rabay inay ka qayb galaan waxa weeye way fadhiyaan waana ka fadhiyaan arrinta iyada ah xukuumadda laga rabaa sidii nimankaas ay ula mucaamili lahayd xukuumadda ayaa laga rabaa waxaan kaloo rabaa inaan hadal kuma jiro inaan tacsi u jiro sarkaalkii
iyo dadkii la dhintay iyo guud ahaan shacabka dagaalamaya ama dhaawacmay ama dhintay ayaan waxaan rabaa inaan tacsina u diro qaarkii dhintana alla u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo laakiin hadalku waxa weeye gunaanadkiisu ama nuxurkiisu waxa weeye haddaan la isu gurman nin walbaba dhinaciisa maxaa dhibaatada u qabsanaysaa federaalkuna maahan oo keliya muxuu ahaa muqdisho oo keliya maaha federaalku waxa weeye maamul goboleedyadu federaalkay ka mid yihiin waxa weeye shaqada iyo hawsha inay wax ka qabtaan weeye oo u soo gurmadaan saaxiibadooda kale ee gobollada markaas dagaalku haysto ma kula tahay haddaad fiirisay hadda shacabka iyo shabaab oo isku hor yimaadeen meelaha qaarkood dagaal ka dhan ah shabaab oo shacabka uu qayb ka noqdo ma kula tahay in looga adkaan karo kooxda horta shacabka ama dawlada ka hor yimaadeen ama ha ka hor yimaadeen mataqaanaa kooxa ka hor yimaadeen shacabka guusha iska leh yani waxa weeye waa dhici kartaa inay ku dheeraato oo dhibaato ay u geystaan shacabka laakiin shacabku wuxuusan raalli ka ahayn ma shaqaynayo shacabkuna raalli kama noqonayo sida hadda ay u dhaqmayaan ama ay u bahdilayaan marka shacabku xukuumaddiisa asagoo kaashanaya xukuumaddana laga rabo inay sida ugu dhaqsaa badan oo suuragal ah meel kasta ay uga caawiso shacabkaas kacdoonka ah way iska celin karaan waana ka rayn karaan shacabkaana guusha leh hadda ugu dambayntii saraakiil dawladda ka tirsan oo sare ayaa waxay ku jiraan jiidda hore dagaalka meelaha qaarkood marka waxaadna og tahay in generaal farxaan qaroole uu dhintay marka ma habboon tahay in saraakiisha dawladda ay dagaalka u horumaraan mase waxaa habboon inay ayaga gadaal ka hagaan oo ciidamada keliya ay ka qayb galaan waxa weeye qofka hogaamiyaha hadduu asaga iyo askarigii ay safka isla galaan deed waxa weeye askarigaas markuu gurmud u baahdo oo ama cadowga ama dhibaato gaarsiiyo taliyihii u gurman lahaa ama ciidanka u diri lahaa hadduu asagii safkii hore ku jiro sida haddaba dhacday waxaa garan kartaa inay halkaas ka imaan karto hogaamintii inay kala daadato marka waxa weeye waxaan ku talin lahayn ama talo kusoo jeedin lahayn annagu hadda waxa weeye odayaal baaba noqonay waaba duqownay waxa weeye dhalinyarada shaqada ku jirta in la dhiirigeliyo laguna dhiirigeliyo hogaaminta inaysan dhumin oo safka hore haddaad gasho ciidankii aad amran lahayd ama aad u yeeran lahayd ama aad ku badbaadin lahayd ciidanka furuntiga jooga haddeed adigii joogayso goormaad fursad u helaysaa xabad baad ridaysaa marka aad bay u dadaalhayaan oo waa naftood hurayaal oo waxa weeye inay dhiirigeliyaan bay ciidanka rabaan oo dhiirigelin bay ku tahay laakiin haddana waxa weeye taad qabanayso iyo tii waajib la rabay inaad qabato maxaa ka imaan kara in la isu dheelitiraa fiican marka waa ku guwaabinayaa geesinimadooda laakiin waxaan ku talin lahaa ama siyaadaba ay tahay dagaalba ay tahay taliyuhu inuu ciidanka taakulayntiisa iyo hogaamintiisa iyo hagiddiisa inuu ku ekaado ciidanka loogu talagalayna inuu muxuu ahaa inay xabadda ridaanna loo daayo ayaga mataqaanaa fursadooda la siiyo aad baad umahadsantay generaal kheyr badan